waa maxay sababta dadka muslimiinta ah loogu diiday inay cunaan hilibka doofaarka? nin u dhashay waddanka Germany ayaa weydiiyay nin ay wada shaqeeyaan, waa maxay sababta aad u cuni weydeen hilibka doofaarka? waxaan ka rabaa sabab cilmi ah inaad ii sheegto, laakiin ma raba inaad ku soo koobto waa naga xaaraan. ninkii muslimka ahaa wuxuu ku yiri, waa sax si waqti hal saac anaa ku keenaya sababta. baaris uu sameeyay kadib waxa u soo baxday inuu doofaarku cuno wax kasta oo bakhti ah, xitaa aabihii ha noqdee. wuxuu cunaa saxarada, kaadida, xitaa tiisa iyo haraaga xayawaanada kale. 2 wuxuu cunaa wasaqda oo dhan, ha noqoto mid qalalan ama mid qoyan. doofaarku uma kala soocno waxa uu cunayo. 3 sunta ku jirta hilibka doofaarku waxay 30 jeer ka badan tahay ta ku jirta xoolaha caadiga ah. 4 doofaarku ma dhidido oo haragiisu wuxuu nuugaa dhammaan lididka ka soo bixi lahaa jirkiisa. 5 marka la cuno hilibka xoolaha wuxuu qaataa 6 ilaa 9 saac in la dheefshiido, taasoo keenta in sun yar laga soo saaro. laakiin hilibka doofaarka waxaa lagu dheefshiidaa 2 ilaa 3 saac, taasoo keenta inuu beerku qabto sun aan xad lahayn. 6 doofaarku labka wuxuu u galmoodaa doofaar kasta, lab ama dhidig ku doona ha noqdo, taasoo keenta inuu xanuuno badan qaado. 7 hadduu dhinto doofaarku muddo 3 saac oo qura ayuu jirkiisa ka soo baxaa tixri fara badan. sidoo kale bakteeriya ku jirta jirkiisa ma dhimato xitaa haddii muddo badan dabka lagu daayo. haddaad baadho laga yaabaa inaad hesho macluumaad kale oo aad u badan. alla wax walba uu inoo diiday, wax kasta oo inoo diiday waxay yihiin wax dhibkeenna uu ku jiro. wuxuu ina farana waa wax danteenna ay ku jirto. dadka muslimiinta ah wax walbo alla xaggiisa uga yimi waa inay fahmaan inay tahay mid ayaga u wanaagsan, wixii laga reebana waa waxaan ayaga u wanaagsanayn.